naftii hore maanta oo kale ayay ahayd markii hogaaminta ururka iyo xubnaha iyo taageerayaasha iyo shacabka ogaadeen iyaba ay isla garteen in abaabul iyo midnimo cusub iyo laba kaclayn la sameeyo wufuuddii aad hogaaminayseen ee gobollada kale aaday xaalad xagge halkay idiin maraysaa maxaa idiin qabsoomay ilaa iyo hadda hawluhu waa sidee aad iyo aad bay umahadsan tahay waana su-aal fiican 11 bishii hore June bay arrintaasi ahayd qorshaa la sameeyey qorshihii baa lagu hawlgalay gobolladiina laba qaybood baa loo qaybiyo saddexdan gobol Sarad iyo Qorraxay iyo Doolo waa la isku xidhay aniga iyo maxay iyo Faatile oo midaysan kaadir badanna oo nala socday xubnaha la dhaxaa tagnay hawshaas meel fiican bay noo maraysaa shacabku waxay diyaar u ahaayeen kolon inay arkaan shaqo socota iyo madaxdoodii oo wada socoto oo midaysan ina way arkeen hal sawir baa kun hadal ka fiican baa la yidhi wax su-aal la weydiiyo oo maanaan arag maxaad ku heshiiseen wax nagaada maanaan arag Sarad baanu kaga bilownay Qorraxay baanu tagnay Doolaanu u gudubnay kadibna waanu kala hawlqaybsanay qolo walba meesha loogu talagalay bay tagtay waanu iswaraysanaa hadda xilli walba waan wada hadalaa wax caqabada noocay doonta waa noqotee kuma garanaysaa amni iyo ku kala tabana wax caqabada maanaan la simin annagu saddexnada kuwa gobol hawshan aad iyo aad ugu fiican tahay moraalka dadkuna aad u fiican yahay waxoogaa xanuun baa jira coronaviruskii baa jira oo sidada waaweyn iyo waxyaabaha aad iyo aad ugu geli maayaan wada xanuunkii weli buu jiraa taas caqabad dabeeci oo jirta weeye sida kale maasha allah waxaa weeye hal mar ayaa la iswada taagay hawshuna meel aad u fiican bay maraysaa waan gartay wufuuddan loo kala diray gobollada adigu aad ka midka tahay yaa kala hogaaminayay ma saddex gobol keliya ase midda kale ayuu ahaa qorshuhu mise gobollo kalaa jira 9 gobol bay ahaayeen saddexdan gobol annagu aan usoo horbaxnay Sarad iyo Qorraxay iyo Doolo Faafan iyo Erar iyo Nabad iyo Shabeelle iyo Afdheer intaasna qayb ahay markaa labaad bay ahaayeen oo iyana waxa weeye si dadkay u hawlgaleen marka hawlgalku labada nooc oo wada socdo ahaa qaybtanadan waxaa hogaaminayay qofkii hore waan wada soconay faasan ku wada ahayn qofkan dambe ee kala hawlqaybsanay والله أحمد ياسين ما يا هجاني ياسين بلاد حق والله سعودي ما كادر ولا سعودي فرح فاتله هجاني وبلاد حق معايا ياسين كادر على سعودي فرح حوي أنا جا هجاني بلاد حق مقارنة سعي كادر كائن سعودي أول استقطه خيبة كرديان إجابة كولا قيد قادنا أيام بيعهي هنا عشان أفرط قوالة كلامه sida nadan oo kale bay ahaayeen oo hawlgal isku dhaf oo kaadirkii iyo magaranaysa qolihii ay ka wada qayb qaadanayaan iyo xubnihii ciidankii hore ay ahaayeen marka hab dhamaystiran buu ahaa runtii marka habkaasi hawsha u socotaa saddexda gobol ee kale ee Daawud iyo Liibaan iyo Sifina waa fayska labaad weeyaan fayska labaad bayna noqonayaanoo waxoogaa farsamo ahaan baa iyaga dib loogu dhigay marka hawshoodina iyana waa la bilaabayaa hadii la yidhaahdo naftii hore Maxamed Asad qorshahan ama hawl qaybsigan ujeedada u weyn ee laga lahaa maxay ahayd ma abaabul kaliya oo ahaa ma hawlo kala la xiriiray ma kobcinta dhaqaale ee ururku ahaa qorshaha loo dejiyay hawlgalkan muxuu ahaa adoo soo koobaya hawlgalkan hawlgal isku dhaf uu ahaa kow hawlgalkan wuxuu ahaa jabada midmadowga soo yar kala dhex galay marka midmadowgii in la saaray oo laga heshiiyey in dadka loo warramo ayay ahayd sababka labaad waddanku xaaladda guud marayo in dadka loo sheegana way ahayd shaqadii caadi ahayd ee ururku uu lahaa in la dardargeliyana way ahayd dhaqaalihii ururka in dib u habeyn lagu sameeyo oo la casriyeeyana way ahayd marka hawlaha kala duwan ee wada sababka u ah socodsiinta shaqada ururka iyo hawlgalkan isugu jiray okay goormuu ku eg yahay hawlgalkani ma jira muddo muxaddad ah oo loo xadeeyay oo xilli hebel intuu bilowday xilli hebel kusoo dhameeya la idin yidhi oo la idin qabtay mise gobol kasta intay hawshiisa ugu soo dhamaato baa la arkayaa waxaa la qabsaday waxaa weeye muddo 40 beri ah 10 beri yaa la qabtay howlgalka madaxda ee hogaaminaysa ee kaadirkuna uu ku dhafan yahay ee gobolada kale iyo meesha dadku joogay shaqada ka socotay muddo 40 beri ah in waxaa weeyaan nin walba meesha lagu qoray uu joogo oo hawsha uu ka qabto oo uu la shaqeeyo maaragtay xubnaha ururka meeshaa jooga
weeyaan muddadiisu haddii loo baahdo extension in lagu sameeyo lasii kordhiyana waa lasii kordhinayaa laakiin kama yaraan karo waayo shaqadaan rabna inaan qabano waxaa weeye shaqo aad maaragtay u culus weeyaan waan gartay maadaama hawshani hadda shaqadan ay tahay shaqo baaxad weyn oo meelo badan idinla geli karta meelo nabadgelyada xidhiidhlada idinla geli karta meelo odayaal iyo dadka shacabka idinla geli karta maamulka meesha ka jira idinla geli karta waa sida xidhiirkiina gobollada aad tagteen hadda aad ka howlgalaysaan idinka ama kawanelaf ahaan iyo maamulada meesha ka jira ee d d s ilaa hadda waxa kabadahoo maamulka stateka nagaga yimid inuu jiro gobolladuna way sii kala fiican yihiin waanu la kulanay gudoomiyihii gobolkan waan la kulanay si fiican baanu isu fahnay iyana howlgalbay bilaabeen laakiin hadda ka dambeeya de in danaha ummadda laga wada shaqeeyo oo wixii lagu kala duwan yahayna lasu xismeeyo wixii la wada leeyahayna laga wada shaqeeyaanu isaa firanay marka isna inuu kor u kici doono maarata xiriirku yaanu aaminsanahay aad baad umahadsan tahay naftii hore maxamed asad adaa mudan aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdimuuse maxamed